beri baa waxaa jiri jiray laba gabdhood oo saaxiibo aad isu jecela. Waxay ku noolaayeen meel tuulo ah oo guryaheedu ay ka samaysan yihiin dhoobo dusha sare laga saaray caws la qallajiyey. Labada gabdhood mid waxaa la oran jiray Friida, midda kalena waxay ahayd saaxiibteed oo waxay ka dhalatay reero danyar ah oo aan hanti badan lahayn. Friida saaxiibteed way wada ciyaari jireen ciyaarta xaraka boodka oo ay aad u jeclaayeen. Maalin kasta waqti farxad leh ayay wada qaadan jireen, laakiin isku labis iyo isku nolol midna ma ahayn. Marka iskuulka la aadayo, Friida iyadoo diyaarsan bay imaan jirtay iskuulka, halka saaxiibteedna ay kaba la'aan iskuulka ku imaan jirtay maadaama reerkoodu ay ahaayeen reero danyar oo aan wax badan oo hantiya lahayn. Laakiin Friida waxay ahayd mid diyaarsan oo si qurux badan u soo labisata. Maalin walba saaxiibteed way u imaan jirtay, waxbay u sheegan jirtay, waxaana way ka caawin jirtay gabadha caqliga badnayd ee Friida la oran jiray. Wayna soo dhaweyn jirtay saaxiibteed oo waxay u noqotay walaal fiican. Marka iskuulka la joogo ama la israacayo oo magaalada la aadayo, marka ay soo labisato, Friida waxay arki jirtay saaxiibteed oo maray duuga oo jeexjeexan oo duldulaalo ku labisan. Boorsada ay wadato ay tahay boorsooyinkii hore oo duuga ahaa, aad bay uga xumaan jirtay. Waxay geyn jirtay xaafadooda, way u labisi jirtay oo dharkeeda qayb ka mid ah inta siiso ayaa waxay ku casuumi jirtay cuntooyin qaali ah oo aysan saaxiibteed weligeed arag. Markasta waxay u ahayd qof caawisa oo u dhow oo farxad iyo wanaag la qaadata. Marka iskoolka la joogo, Friida waxay soo qaadan jirtay qalimaan badan si ay ugu caawiso saaxiibteed, kuwaasoo kala kalar ah, halka saaxiibteed ay maryo karkaran oo duug ah iyo buugaag duuga iskuulka la imaan jirtay. Laakiin saaxiibteed Friida ayaa caawin jirtay. Maalin maalmaha ka mid ah ayay Friida saaxiibteed waxay si kedis ah ugu keentay kabo hadiyad ahaan. Markii iskuulka laga soo baxay ayay ku siisay wadada, iyadoo u sheegtay in hadiyado kale ay u soo wado saaxiibteeda. Habeenkii markii la gaaray ayay hooyadeed waxay ka codsatay lacag si ay saaxiibteed hadiyad ugu iibiso oo ay farxad ula qaadato. Hooyadeedna arrintii way soo dhaweysay, gabadheedina waxay u ballan qaaday inay siin doonto lacagta ay u baahan tahay. Subaxii marka la gaaray, Friida saaxiibteed waxay u keentay dhar cusub iyo boorso, kabo kabaheeda u eg, sigisaan ama sharbaadadeeda u eg. Waxay kaloo u keentay boorsadeeda u eg, ilaa iyo taako ay timaha ku xirato ayay u keentay. Saaxiibteed aad bay uga farxisay runtii. Aad iyagoo u faraxsan ayay iskuulkii soo aadeen markay guriga ka soo labisteen. Sheekadan waxaan ka baranaynaa saaxiibtinimadu in ay tahay is-ilaalin, is-ixtiraam iyo is-jacayl, iyo inaad caawiso saaxiibkaaga. Fadlan haddii halkan nala soo gaartay sheekada, like fara badan saar, laba ka mid ah asxaabtaada u sheer gaara, sidoo kale channelkana subscribe saar. Soo dhawaada mar labaad.